dhinacna lagama isticmaalo dhinacna layskama tuuro. waxaan ka shaqaynaynaa miisaaniyad waaye, miisaaniyadduna waqtigay leedahay. dood iska furan oo iska soco kartaa waqtigay u baahan. saaxiibkay cabdixakiin anigoo xurmo u haya miisaaniyaddaas sanadkii 2022 oo rabay in la ansixiyo December 31 ugu dambeyn ayaa dhamaatay. 3 bilood oo dheeraad ay qaadatay wasaaraddu oo ay xaq u lahayd 3 kale oo la yiri madaxweynaha aqbalay oo aysan sharciyad madaxweyne miisaaniyadda ku saxiixi karin iyadoo golayaasha soo marin ee miisaaniyaddu berri ku egtahay 3 bilood oo dambe. haddii la leeyahay waa iska furan tahay sharciga miisaaniyaddu maalintii la rabaa la qaban karaa oo nidaam hadda laga dhigayo laga dhigo. haddii nidaamkii sharciyadeed oo miisaaniyadu ku socon jireen oo sanadka ku dhamaanayay sanadkana ka bilaabanayay ay tahayna 3 bilood oo hadda la soo isticmaalay waxa hadda meesha wasiirka Umaalood ka soo jeediyay xeer madaxweynaha ku isticmaalayno xeer madaxweynena miisaaniyadda sharci ma aha inuu keligii madaxweyne u saxiixo. laakiin duruufta lagu qaaday marka duruuftii waa dhamaatay waxa kale oo rabaa inaan hoosta ka xariiqo waxa halkan bariyahan oo dhan looga hadlayay xisaab celinta miisaaniyadda. haddana waxaan arkayaa inay tii xisaab xirku ku dhumi jira camalba tahay bataan maanta oo la leeyahay waqtiga la dhaafsiinayo 2018 miisaaniyadda hadda maalin dhow annaga guddiga aan markaan fiirinaynay 2018 xisaab xirkeedii ayadoon meel la saarin oo golaha iyo wasaaradda meelna aan la saarin ay dhexda ku maqan tahay oo qolo walba ay leedahay adinkay idinla maqan tahay oo wasaaradduna ay leeyihiin waa gudbinay akhrintii saddexaad oo in la ansixiyo la rabayaa dhexda meelaha la dhiga la leeyahay. aniga waxaan soo jeedinaa anoo gudoomiyaha iyo labada gudoomiyaasha dhageysanayay aan soo dadaalno miisaaniyadda berri hal ansixiyo. waxaan kale oo waxa miisaaniyaddan hadda 6 bilood oo isticmaalkeedii dhamaaday aysan la ansixinin September ay soo noqonay ama October ay soo noqonay markaas si sax ah looga doodo inta meelood oo la rabo in dib loo fiiriyana hal la fiiriyo ayadoo wasaarad cusub wadato ama wasiirku soo noqdo ama mid kale ha yimaadin aan maalinta dib u fiirino miisaaniyaddana berri hal ansixiyo. intaasaan rabaa inaan gudoomiyo. Dr. Gudli.